warna xadin leh al-shabaab oo bilaabay guryaha ku xiran kaamirooyinka inay qarxiyaan xalay garis baalay 5 guri ay qarxiyeen oo miinooyin ay ku xireen ayada loogaay in guryaha ganacsiga iyo goobaha ganacsiga inay qarxay ku xiraan markaana xaalad kale oo khatar ayaa shacabka Muqdisho ay wajahayaan in guryaha qarxay lagu xirayo guri walba ay qarx ku xirayaan ay ku dhaarteen xalay garis baalay qof walba ayaa ogaa in 5 guri oo halkaas ay qarxiyeen dad ayaa dhaawac gaaray وحالات كلا ولا عليه أول حلقة إن جواب جناح سي جوان قرحي كحران مركان جوري ضد كرهيت كده جناح يا مركان قرحي الوحرية بحين قولي بنا يعني محا وحرت كاميرون درت كده إذا كان بابا يعني وقتر وين جالس باللي ودولات كمقدشوا أي حالة سنة حالات أنا كده علي دور مرة جواب جناح سيرك أي لو قرحي مركان حالات كلا قتر أو أجوبة إن جوريها كأن كاميرون كلا قرحي أي مركان سعود al-shabaab markaani dadka shacabka walwal bana ay ka qabaan in guriyo walba lagu xiro kaamiro ku xiraan misna ay qarxiyaan xaalad khatar ugu darneed ee markaan shacabka Soomaaliyeed ay wajahayaan ayuu nimankaas hadda loo helin in xal loo helin khatar ay ku tahay guriyo badan oo Muqdisho ku yaala oo ku xiran kaamirooyin ay burburiyaan ee miinooyin ku xiraan xaalad garis baalay saqad xalay ay hal mar uuro iyo jugta dabaq xooggan isqabsaday qof oo kamid ah abi u weynaa reerka ayaa ku dhaawac ka soo gaaray laakiin gurigii agabkii waxa la wixii alan u weebabeen dadkaasi masaakiinta waxay galabsadeen ma jirto waxay u dhimanayaan baabaayaan waxa u xiratay kaamirooyin kaliya ay u dhimanayaan waa khatar waa arin aad waxaan u badan waay in shacabka Soomaaliyeed oo gaarsanayo mar walba ay waxba ay galabsan kaamirooyinka amniga ee tuugi si waadilaan loo darto loo dilay markaane Muqdisho dhexdeeda ayaana dadkii walaac saakay isdhaxgal bulshada dadkii isdhaxgaleen saakay qof ayuu su'aal weydiinaya khatarta ka imaan karta in guryaha qarxay lagu xiro in xalay garis baalay guryaha qaar la burburiyo gabi ahaan dhulka dhigay qarax xoogan ku xireen halka Muqdisho caasimadana ay yaabihiin xasayn leeyihiin anaga maxaa nagu maartay soo khalis sama inaa maartay miinooyin guryaha lagu xiro oo carruurteena anagoo jeejifna gabi ahaan baabaan dowladda shacabka ka codsiina amniga si adkeeyaan sida guryahaas ku yaal Muqdisho loo qarxin oo qarxay lagu xiran hal garis bal ayaa laga bilaabay guri kale oo bilaabay taas leeyahay nimankaasi waa cadowga ummadda islaamka hadda qof walba iska qabanna dhiigooda way banaysanayaan oo bilaamay darro waxay ku heesaa ma jiraan oo waa kibir waa idib darro in dad masaakiin maalin walba ay ku xadgudbaan qarxiyaan oo Soomaaliya masaakiinta baa loo dhibanayaan amar dowlad ay sameeyaan kaliya ayaa loo dilay maxaa u sameeyeen oo ma sameey kartiin ayaa loo baabiinaya gurigaas garis baa ku yaala dad masaakiin ayaa kaliya ku deganaa caruur badiin iyo ilmo iyo hooyo iyo aabo masaakiin waxba haysan ayaa xalay alaabtoodii la baabiyay maxaa lagu dilay maxaa loo qarxiyay intaas abeeraatay su'aasha ma yaqaaniin qarayo ayaa markaa bilaabay Muqdisho in lagu xiro guriyihii khatar kale cusub iyo cabsi kale weyn oo soo wajahay guryaha ku yaala Muqdisho reer walba markaan cabsi ay wadna iyo fartkaya wuxuu isleeyahay goormeen guriga kaamira lagu xirdo qarax lagu xirdo doona goormeen lagu soo weerari doona oo cid walba guriga ku yaala Muqdisho kaamira u xirina cabsi weyn ayaa soo wajahay sababtoo ah aragteen garis baa shalax lagu xirdo kaamira u xiray Soomaaliya muuqaal la gaarsiilaama amniga ala la shaqeeyo oo sidii nimanka la isaga celin lahaa oo meel iska saar lahaa waa cadowga ummadda islaamka mar walba dadka qarxinaya dadka dilaya waxaana aka galabsan habay yaraatay saaka dilaya muuqaalka qabta meel gaarsiiya khatar weyn iyo cabsi weyn oo ku soo wajahan Muqdisho guriyada qaar oo dadkii cabsi soo wajahay ka cabsi qaba in lagu xiro qarxiyo habeen saqrax carruurtoodii agabkii yaala la baabi'iyo waa khatar weyn oo Muqdisho ku soo wajahan shaqare muuqaalka adawgaana halisko laga soo warjeeso lama amniga la shaqeeyo